Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu akhyaarey sida u udashihiinba kusoo dhawaada channelkeena haddii aad nala socotay aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay videoga hore ugu sii soco haddii aad nagu cusub nahayna fadlan subscribe inoo saar haddana kusoo dhawaada wararkii u dambeeyey caawa 6 saac markay tahay waxaa xirmaya suuqa iminka haatan waa waqtiga waaba sii dhow yahayba waa 5 saac iyo badh habeenimo hase ahaatee waxaan soo koobayaa oo aan dulmar ku samayn doonaa Arsenal January-dan saxiixyada ay samaysay haddii aan ku bilaabo kii ugu dambeeyey Arsenal ay saxiixday ciyaaryahanka wuxuu ahaa Jorginho from Chelsea kadib markii Arsenal ay heli weyday Caicedo ciyaaryahankaas oo weliba Arsenal xoog badan ay saartay si ay ku hesho ilaa weliba lacag 80 milyan ah ay Brighton u bandhigtay hase ahaatee ay ku guuleysan weyday dabadeedna Arsenal waxay istiri wardad waxaa tihiin title u dagaalamayeen Jorginho soo qabsada oo maadaama Elneny hadda dhaawac uu galay oo xilli uu kasoo kacay aan la garanaynin Lokongana aanan Premier League sidaa la isku cunayo oo Casemiro iyo balaayo dadka dhexda u fadhiyaan aan lagu haleyn karin Jorginho keensado oo ninka dhexda idin qabto inkasta oo Jorginho isaga laftirkiisana oo ogyahay annagana aan ognahay inuusan ciyaari doonin hadday Xhaka iyo Partey labadooda ay fit ay yihiin ragga ayaga ay wax walba ay gacmaha iyo lugaha ku qaadanayaan haddana in case oo labadooda mid ka mid ah injury uu galo waxa weeyaan option Arsenal u yaallo oo shaqadiisa hore kasii qabsanayo oo waa master basa baa loo yaqaana ninka dadka banoonta isku dhadhajiye maaha wuu ogyahay inuu tabar yar yahay waxaa weeye banoonta soo qaado iska sii bixi soo qaado iska sii bixi runtii marka aan fiiriyeyna Jorginho badi dadka oo khibradda leh ka bixinayeen commentigooda ama ra'yigooda ka bixinayeen kulligood waxay islahaayeen waa Premier League proven waa ciyaaryahan shanta sano u dambeysay Arsenal Chelsea ay koob ay ku qaadaysay Europa League 18 ku qaaday Champions League ay ku qaaday sanadkii ka horeeyay marka wax lagu caayo ma leh caayadiisa kaliya waxa weeyaan ay leeyihiin waa da'daas Arsenal si fiican bay samaysay oo inay hal sano kaliya ay ka saxiixato inkastoo weliba uu jiro option ah in oo hal sano kale loogu sii dari karo laakiin haatan la taagan yahay Arsenal dealka ay la gashay ciyaaryahanka waxa weeyaan ilaa 2024 waana deal aad u fiican runtii oo hadduu seasonkan uu ku dhamaado hadhow Caicedo ayaad keysan kartaa inkastoo la sheegay in ciyaaryahanka samarka dambe Caicedo ay Arsenal ku heshiiyeen inay saxiixan doonaan ay soo qaadan doonaan hase ahaatee imika aysan qaadan karin waa option meesha u yaalo sidoo kale Arsenal waxaa la sheegay haddii xitaa ay Caicedo ay keento weli waxay sii raadinaysaa bedelkii Granit Xhaka oo waxay isku dayeysaa Arsenal inay Declan Rice ay keensato haddii ay suurto geli weydana ay soo qaadato Yuri Tielemans marka Arsenal ciyaaryahanka ayay keentay runtii London ayuu joogaa si official ah weliba number 20 ayaa la siiyey ciyaaryahanka sidoo kale Arsenal waxa ay maanta ay dirtay ciyaaryahankii yaraa Marquinhos Brazilianka garabka Arsenal u ciyaarayay gamekii Europa League aan dheelinay wuxuuna aaday Norwich City halkaas oo uu kusoo dhameysan doono inta ooga dhiman seasonkaas ahaatee ilaa hadda Cedric Suarez ayaa isna aan arkin hal meel lagu diray oo weli wax ka hadlayana ma arkin waxay u badan tahay haddiisan 30 daqiiqo ee inagu soo aadan uu bixi waayo inuu joogi doono maadaama sidoo kale Arsenal aysan saxiixin right back cunugii yaraa ay raadineysana Ivan ay Real ay ku qancisay in uu joogo oo uusan ka tagin intaan ka dhiman seasonka sidoo kale Arsenal markii uu bilaabanayay January-da waxay saxiixday Trossard inkastoo ay aad ugu dadaaleysay weliba 4 bilood ugu dambeysay ay aad ugu dadaaleysay Mudryk ayna hadal haysay oo isleeyahay Mudryk keena
oona maaragtay qof walba iskaga qanacsanaa oo macal ciyaaryahanka laftirkiisa uu ku qanacsanaa oo maaragtay videoga Arsenal ay leedahay Instagramkiisa soo saaranayay hase ahaatee way heli waayeen oo Arsenal ciyaaryahanka inay maaragtay 100 milyan ka bixiyaan way qoori waayeen kaasoo weliba markii ugu dambeysay ay noqotay inuu maaragtay Premier League team kale uu ka raadsado oo maaragtay uu Chelsea halkaa uu aado hase ahaatee Arsenal wax khasaare ama qabta Trossard ay soo qaadatay ciyaaryahan maaragtay saddexda front three position ba ka ciyaari karo striker hadaa rabto AD ayuu kugu bedeli karaa haddii aad rabto wuxuu kugu bedeli karaa Saka ayuu kugu bedeli karaa Martinelli ayuu kugu bedeli karaa waa ciyaaryahan versatile player wax khasaare ah halkaa ma jiraan runtii wax walba oo looga baahan yahay Mudryk ciyaaryahanka uu leeyahay markii laga reebo skillska faraha badanna maaragtay Premier League mid looga baahan yahay maba ahanba Premier League waxaa weeye baasha lugta geli 2 qof ka tag darbo tuur ama baasha iska maqas soo geli intaasna Lisandro maaragtay Trossard ilaa hadda waa lagu hayaa oo maaragtay runtii ciyaaryahankaas ani ahaanteyda waxba kama qabo maaragtay aad ayaan ugu faraxsanahay maaragtay saxiixiisa Mudryk weliba anaga waxaan iska aragnay inuu ciyaaryahanka Europe aad looga maaragtay looga qiimeynayay runtii inkastoo welibana gamekii Liverpool uu la ciyaaray daraad maaragtay 30 daqiiqo gadaal laga keeno uu ciyaarta uu bedelay hase ahaatee maaragtay waa nin maaragtay marka horeba aan lahayn Premier League si fiican moola qabsan doonaa oo makan hadal aan maaragtay inkastoo ciyaaryahanimadiisa iyo sidana loogu faaniyay weli ku yahay oo ku fiican yahay hase ahaatee haddana bedelkiisa ninka aan ku helnay ma xumo oo maaragtay waa ciyaaryahan aad u fiican ba isna halkaa ay Arsenal ku heshay sidoo kale Arsenal waxay saxiixday Yacquub cunuga magaciisa waan la yaabay Yacquub ma Islaan ba ma aqaano waa nin aad u da'yar waxaan arkay isagoo maaragtay la wareystay Lewandowski maadaama isku qaran ay yihiin oo maaragtay labadooda Poland u dhasheen wuxuu yiri ciyaaryahanka markii aan maaragtay training ground-ka aan joogno ciyaaryahan ilama ekeen nin oo maaragtay wuxuu iskaga kayaa ciyaalka xaafadda oo maaragtay xiro ayuu u ekaa hase ahaatee markii uu garoonka soo galay runtii qaabka uu difaacanay aad baan ula yaabay buu yiri aad baan aan ula tacajabay wuxuuna ahaa maaragtay World Cup-ka dadkii aad noogu caawiyay maaragtay in aan maaragtay early stage aanan ku bixinba ayuu maaragtay sabab ayuu ahaa buu yiri runtii ciyaaryahankana marka aan fiiriyo markaan arkay kolka hore waxaan islahaa nin difaaca waxaa ku fiican nin fiiro weyn oo adag difaacan caatada muxuu ahaa ninkii markaan videogiisa aan dabagalay oo aad u sii daawadayna waxaan helay ninkii inuu yahay maaragtay nin balaaya ka dhacday oo maaragtay aan la mari karinba waa ciyaaryahan aad u fiican runtii inkastoo maaragtay difaacana ciil aanan u qabinba oo maaragtay ay noo joogaan u joogo White ninka ay dhahaan waa difaac ay right back noo dheelo Tomiyasu ninka asagana right back noo dheelo waa difaac Saliba iyo waxaa kale oo ku joogo maaragtay Gabriel Magalhaes marka asaga hadaad ku sii darsato meesha 5 difaac ay haystaa Arsenal weli waxa ay right back ay ku bedbedelayso ilaa hadda waa difaaciyaal rag difaac maaragtay center backs ay ilaa hadda maaragtay ay right back ay u ciyaaraysaa marka waa optiono fara badan oo maaragtay teamna haddii aad tahay team weyn waa inaad ahaataa maaragtay team weyn sida u dhaqmo waa inaad u dhaqantaa hadda Manchester City oo kale marka aad fiiriso Ake ninkan hadda maaragtay ninkan dheer asagana xoog badan Jones joogo Laporte baa joogo maaragtay raggaasoo idilba u joogo maaragtay gadaalna waa laga dhisan yahay dhexda ciil looma qabo Foden baa lagu soo tuuray De Bruyne baa joogo maaragtay horeyna warkeeda iska daa rag baa iska shaqaysanaya marka aad tahay team weyn oo Europe maaragtay tiimkeeda weyn ka mid ugu waaweyn oo haddana tartamayo oo isu soo dhisay waa ina squad-kaada koowaad iyo squad-kaada labaadba labaduba maaragtay same ay yihiin habeen hore waxaan isku soo dhex darnay tiimkeeni dambe tiimkeeni labaad B-deeni iyo A-deeni baan isku soo darnay Man City waxay naga hor keeneen maaragtay eegoodii oo fresh ay naga hor keeneen markaasaan first half-ka hore aan xarbinay waa
waxaan iska dhignay team aan caadi ahayn. Markii dambe oo changing uu dhacay Partey iyo naga baxeenna waxaa nagu dhacay waa arkayseen. Marka waxaa la rabaa in maaragtay labada meelba maaragtay tiimkaada koowaad iyo tiimkaada labaadba inay ku adkaadaan. Sidoo kale hadda Liverpool waxa ku dhacay waa aragtaan. Kii koowaad horta kii labaad waa ka burburayba. Kii koowaadna waa kaas hadda waa sidii kii labaad camal baa loo garaacay mar walba. Waxaana waxaa yeelaya sab la'aan weeye. Ciyaaryahanadii maaragtay waxay ku socdeen buu wuxuu ahaa maaragtay first line up-kaas. Ciyaaryahanada bay ku socdeen oo maaragtay line up-kooda koowaad ahaa. Wax lagu bedelana ma leh maadaama hadda kulligood ay ka wada maqan yihiin. Marka Arsenal waxaan leeyahay maaragtay si fiican ayaa ku socotaan. Runtii haddii ay maaragtay samaga soo socdana ay Caicedo ay soo qabtaan oo ay ku soo daraan Declan Rice oo hal striker oo fiican iyagana ay ku soo daraan. Waxaa weeyaan Arsenal 5 sano ee soo socoto ama 6 sano 7 sano soo socoto Premier League waxaa waaye way xoreysan kartaa oo maaragtay Champions League-na mar walba waxay noqonayaan team aad u tartamo. Mararka qaarna maaragtay oo wax soo dhacsado oo maaragtay Champions League qaadaba. Marka akhyaaray wixii commentiga ah qaybta commentiga lagu wadaaga. Arsenal January-dan transfer plan-keeda maxaa ka leedihiin? Qaabkay wax u sameeyeen ciyaaryahanada ay maaragtay soo saxiixeen maxaa u rate gareynaysaa 1 ilaa 10? Ciyaaryahanada ay keentay Arsenal keebaad maaragtay is leedahay wuxuu noqon doonaa waa signing-ka ugu fiican ee Arsenal January-dan ay sameysay. Arsenal overall maxaad ka qabtaan? Wixii commentiga ah qaybta commentiga ayaan iskugu imaanaynaa. Halkaa ayuuna ku xidhmayaa suuqa. Waxaa anigu hadda marka aan xilligan hadlayo waa 5 saac iyo 40 daqiiqo 20 daqiiqo ayaa xaggeena ka dhiman baan u malaynaya. Laakiin ayagu ilaa maaragtay 2 saacadood camal miyay naga horeeyaan mise naga dambeeyaan ma garanay. Way naga dambeeyaan baan filayaa ayuu maaragtay warkooda soo dhacayaa. Haddii Arsenal ay wax kale ay saxiixdana waa inoo beri baan ka wada hadlaynaa hadduu Alla idmo. Haddii kalena maaragtay transfer window January-dan sidan ayuu ku xiran yahay. Haddana waxaa idinkaga tegayaa sida ay nabadgelyo. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.